waxgaradka iyo cuqaasha gobolka Sanaag ayaa deeqsi ku jirta xoolo iyo raashin waxay ku wareejiyeen guddiga taakuleynta ciidanka difaaca dawladda Puntland ururka haweenka gobolka Sanaag iyo odayaasha dhaqanka oo qayb ka ah dadkii soo aruuriyay deeqdan ayaa sheegay inay sii wada doonaan ka qayb qaadashada taakuleynta ciidankooda taakuleyntan dhiirigelinta ah ee Sanaag ka timid qaybtii waxaan aad ugu ammaanayaa gudoomiyaha degmada Xingalool iyo odayaashii la shaqaynayay oo dhiirigeliyay bilowgii si fiican noogu bilaabay aad iyo aadna u dhiirigeliyay oo taakulaynta waxa weeye inaan ogaano memberka uu noogu jiro waxaan halkan ku wareejinaynaa taakulaynta ciidamada Puntland oo aanu ka keenay gobolka Sanaag annaga oo dareenkayagu aad ula shaqaynayo ciidamadayada garab taagan garbahay ay ka duuli lahaayeen naf iyo maal wixii aanu haynana aanu la garab taagannahay guul ayaan u rajaynayaa insha Allah bilmillahi kariim waxaan kaga soo qayb galay dareenkayaga dareenkayagu wuxuu leeyahay in Puntland isku duubnideeda iyo sharafteeda iyo sumcadeedaba la ilaaliyo ciidamada waxaan leenahay guuleysta anaga gardarro ma naqaan reer Puntland gardarro laguma yaqaan laakiin ninkii gardareysta inay u jawaabaan waa lagu yaqaan waxaan rabnaa gabdhaha gobolada waqooyi ee carruurtooda lagu soo guray tukaraq oo aanay weligood arag oo aanay u dhalan oo aanay abiyo isru lahayn halka inay ku dhintaan waa ka xunahay hooyooyin baan nahay waxaan leenahay carruurtiinu tala idinka baahan tahay weeyaan taakuladan geela iyo ariga iyo raashinka iskugu jira kii koowaad weeye way socon doontaa waa laba laami doontaa waa afar laami doontaa xagga Sanaag gobolka Highland wuu soo balaabanaya waa isaguna shaqadiisii iyo hawshiisii iyo nidaamkiisii inta hoos timaadaaba waa wadeen oo yacni waa hawshii waa gula jiraa hawl waxaa la yidhi ilaahay waxaan ka rajaynaynaa guul waxaan ka rajaynaynaa xaq baa ciidamadu yacni Puntland ku dirirayaan inay ku guuleystaan baanu ilaahay ka rajaynaynaa annana waa garab taaganahay bulshadeedu waa garab taaganahay waa u dhagan ugu lahay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Ciyoon ayaa sheegay inay diyaar u yihiin shacabka reer Sanaag in markasta ay garab taagan yihiin ciidankooda gobolka Sanaag waxaan ugu diga taakulaynta ciidamada difaaca ee Puntland aan halka ku wareejinaynaa taakuladii ciidanka oo ka kooban xoolo ari iyo geel iyo raashin oo ka timi qaar ka mid ah gobolka Sanaag bulshada gobolka Sanaag miyiga iyo magaaladaba marka insha Allah taala waxaan rabnaa guddiga inay nagala wareegto haddii alla idmo taasna waxa weeye waxay ka tarjumaysaa dareenka bulshada ee reer Puntland ay qabaan meel kasta ay joogaanba inay diyaar u yihiin difaaca dalka ciidamadana ay garab taagan yihiin wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda dawladda Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa sheegay inay tahay markii ugu horeysay oo dadka reer Sanaag ay deeq keenaan ayna soo wadaan kuwa kale oo loo baahan yahay in dhammaan shacabka reer Puntland ay ka qayb qaataan taakulaynta iyo garab istaagga ciidankooda waxaan maanta halkan kula wareegnay xoolihii ka yimid gobolka Sanaag qaybo ka mid ah oo horkacaya gudoomiyaha gobolku aad iyo aad baad u mahadsantihiin taakulada tan Sanaag waa markii koowaad oo ay soo gaarto sidaan xogta ku haynana xoolo badan baa soo socda oo Sanaagna ka soo socda Highlandna ka soo socda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan idin soo dhawaynaynaa waxaad moodaa reer Puntland maanta in arrinta halkaa gardarrada ah oo ka taagan inaynu kala harsanayn in badan baa lala hadlay mas'uuliyiinta Somaliland oo la yiri war mushkiladda daaya war dadka daaya war dalkiina ku ekaada war ummadda dalkooda u daaya war dhiigga Soomaaliyeed badbaadiyo way ka dhaga adkaadeen si adag ba hadda loo diyaar garoobay insha Allah sidii loo sheegay wixii dhaxdaro ayaa dhacaya laakiin marnaba dhici mayso isku dayga aragtida hoose ah ee loogu soo duulay ummad iyo dalkooda in loo dulqaato indhaha laga qarsado Xanaan Xasan Maxamed Puntland TV Garowe